بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين نستعينه على أمور الدنيا والدين اللهم توفقنا لما تحب وترضى كو شرقدوك قلها وكيلة جمهورية سوماليلاند og xogayaha guud ee golaha wakiilada jamhuuriyadda Soomaaliland ujeedada soo jeedin mooshin go'aan gale oo la xiriira habraaca xilgudashada hay'adda caymiska iyo fulinta go'aamada maxkamadda sare mudane gudoomiye annagoo ka duulayno qodobka 14 ee xoraasaadka golaha wakiilada xeer 12 oo dhigaya mudanayaasha way xaq u leeyihiin inay soo gudbiyaan inay soo qoraan codsi mooshin waxayna ku soo hagaajinayaan xogayaha guud annagoo sidoo kale maanka ku haynaa nuxurka ku tilmaaman xeerka caymiska qaranka 29/20 iyo ahmiyadda ballaaran ee xabaarsan yihiin adeega caymiska iyo hay'adda caymiska qaranka u xilsaaran tahay isla markaana ahmiyad siinayna cabashooyinka ay golaha wakiilada u soo gudbiyeen ganacsada gaadiidleyda sidoo kalena tixgelinayna duruufaha iyo qabyada la xidhiidha adeegyada caymiska waxaanu halkan ku soo gudbinaynaa soo jeedin ujeedadiisu tahay inay goluhu soo saaraan go'aan gole oo la xidhiidha habraaca xilgudashada hay'adda caymiska qaranka iyo fulinta go'aanka maxkamadda sare haddaba waxaanu golaha u soo jeedinaynaa in go'aan gole ku soo saaraan qodobadan kale ah inuu goluhu ayido go'aankii maxkamadda sare ee sumadiisu ahayd kuna taariikhaysnaa 18 bishii 9/2022 kaas oo maxkamadda sare ku laashay wareegtadii ka soo baxday hay'adda caymiska qaranka ee sumadeeda ahayd HAG/9/6/2022 kuna taariikhaysnaa 12 bishii 9/2022 lambar 2 in hay'adda caymiska qaranku xilkeeda u gudato si waafaqsan dastuurka iyo shariicada islaamka xeerka hay'adda caymiska qaranku ee xeer 29/2022 iyo xeerarka kale ee dhaqangalka isla markaana khuseeya hawshooda lambar 3 in hay'adda caymiska qaranku hakiso dhammaan adeegyada caymiska ee shirkaduhu bixiyaan iyo takaaliifta ilaa inta marxaladaha xeerdejinta ka gudbayo xeerku isla markaana ka dhaqangelayo xeerka shirkadaha caymiska ee golaha hor yaalla lambar 4 in guddi hooseeyada ay khusayso go'aanka maxkamadda sare ay u kuur galaan isla markaana ku kor joogteeyaan hay'adaha go'aanka lagu sheegay inay fuliyaan go'aanka si waafaqsan xeerka lambar 5 in hay'adda caymiska qaranku bulshada ku wacyigeliyaan ahmiyadda ballaaran ee bulshada u leeyihiin guud ahaan adeegyada caymisku iyo doorka ay ku leeyihiin si xeerka waafaqsan lambar 6 in guddida dhaqaaluhu muddada kalfadhiga ka harsan gudihiisa ku soo xaqiijiyaan ku habboonaanta mas'uuliyadda xilgudasho ee guddoomiyaha iyo guddoomiye ku-xigeenka hay'adda caymiska qaranka isla markaana ka soo talo bixiyaan una soo gudbiyaan golaha si waajibaadkooda u gutaan si waafaqsan xeer asaaska wabilaahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu aad buu mahadsan yahay gudoomiyaha guddiga dhaqaalaha cabdirashiid cabdilaahi